يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي. الرحمن الرحيم. وحنك بالله يا آية قرآنك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحيم. هل كان waxaa isku yimideen maadaama oo soonkii fadligiisa ilaahay inoo keenay kuwii hore ayaa maanta waxaa ilaahay kasay inuu gurigiisa lagu qaybiyo muqtar cadde muumin cadde marka alxamdulillaah rabbil caalamiin gurigiisa ayaa maanta sanadkan lagu qaybinooyay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay mumkino muraadkiisa iyo muraad muslim allah sahlo shacab weynaha Soomaaliyeed oo muslimiinta ah inta mumkino oo macnaha ilaahay u sahlo oo ilaahay uu deeqo ilaahay u sahlo waa la wada siinaa haduu ilaahay yiraahdo shacabkana way maqan yihiin haddana haduu ilaahay yiraahdo way imaan doonaan haduu ilaahay yiraahdo marka waxaan codsanaynaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed oo muslimiinta ah in ay isku daydaan maalmaha oo bisha ah oo barakeysan in oo sadaqooyinka la bixiyo maxaa yeelay ilaahay ayaa yiri macnaha in soonka kaliya inay qiimo iyo qaayo ay leeyihiin marka alxamdulillaah rabbil caalamiin sanooyin ban waa aragnay marka maanta waxaan la jeclaaday in gurigiisa muumacada ee gurigiisa lagu qaybiyo marka alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waa u jeedin shacabkan way maqan yihiin banaanka ay taagiin marka wixii ayaa la qaybinooyay waa la diyaarinooyay marka waxaan jecelnahay haduu ilaahay yiraahdo mar dhow in macnaha aan bilaabno si oo macnaha ummadii loogu talagalay oo macnaha sadaqadooda in la wada siiyo haduu ilaahay yiraahdo. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرحيم maanta ay tahay maalintii saddexaad bishii barkeysneed ee Ramadaan waxaan afurinaynaa haduu Ilaahay karaal noqdo 106 qoys oo soo dhiibeen dadka kala duwan dunida dacaladeeda kala jooga ay ugu talagaleen walaalahooda sooman in lagu afuriyo marka hawshan waxaan soo bilownay 3 bilood koor waa bishii Janaayo iyo Febraayo iyo Maarso iyo Abriil waa 4 bilood adee oo qabanqaabada aan ku jirnay afurintan dadkan la afurnayo oo 106 qoys waxaa noo dheeri ah dad kale oo ka baxsan oo iyagana noo diiwaan gashan laakiin wali aysan soo gaarin dadkii waxa wixii lagu afur lahay waxaan ka rajeynaa haduu Ilaahay karaal noqdo dadkii ballan qaaday inay dadkaas afuriyaan iyo dad kale oo iyagana ka rajeyno inay iyaga laftigooda ay ka qayb qaataan Allah subhanahu wa ta'ala ay u sugnaatay mahad nawaafajiyay hawshan khayrka ah oo sanadkii afraad aan gelayno haduu Ilaahay karaal noqdo waa sanadka afraad ee hawshan afurinta ah ee aan wadno Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu nala garab galo ummadahaas kala duwan ee wax soo sadaqaystay ee wadamada kala duwan joogo iyagana mid kasta muraad uu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa muraadkeeda inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay u sahlo ayaan ka baryaynaa runtii waxyaabaha ugu fiican ee la sadaqaystay tan ayaa kamid ah afurunta runtii ajir badan oo aan la soo koobi karin ayaa runtii ku jirto marka waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa groupkan oo muddadii 4 bilood oo Janaayo Febraayo Maarso iyo Abriil waday ururinta dhaqaalaha afurinta groupkaas oo lagu magacaabo agoonka farxi waa group lagu magacaabo agoonka farxi oo runtii
gabdho Soomaaliyeed oo wadamo kala duwan joogaan qaasatan UK dadkii soo abaabulay fikirkaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu macnaha ka abaal mariyo wanaagga ay sameeyeen iyo macnaha ka fiirsashada ay ka fiirsadeen in dadkan la afuriyo oo 3 bilood ka hor dadku ku fikiri runtii wax dad wanaag iyo khayr jecel waaye marka ilaahay ka abaal mariyo wanaagga ay runtii ay raadinayeen marka wax runtii aad loogu farxo waaye in group gabdhaha u badan oo ragna ku jiraan oo ahlu khayr ah ahlu diin ah oo runtii wanaagga jecel kaliya howlaan xataa oo afurinta waxay sameeyaan xataa mararka qaarkood in dadka qaasatan aqoonta ah oo aad u liito oo kuwa runtii oo la yasa ah fiir gaar u yeeshaan xataa bishiiba 150 ay baxshaan oo iyagana si gaar aan ugu dirnaa barnaamijkaas marka dadka u istaag runtii dad aad u badan waaye gabdho waxaa jira xataa oo iyaga laftooda UK aad macnaha hawsha xooggeeda dadka UK jooga waaye gabdho kale iyagana waxaa jira isxil qaamay oo iyagana 4 gabar ah oo macnaha u dhaqaaqay in afurintan ay sameeyaan waxaan ku xusi karnaa xaawo cabdi dhagweyne gabar lagu magacaabo Jiija Cali gabar kale lagu magacaabo Caasha Macalin iyo Xabiib Cadow afartaas gabar iyagana runtii dadka isxil saaray waaye oo macnaha dhaxda u dhuuqsaday in dadkan la afuriyo oo dadaal dheer sameeyo markaas iyagana waxaan leenahay muraadkooda iyagana Allah sahlo runtii gabdhaha u niyad fiican waa gabdhaha sanadkan waxaad moodaa ragga inay ka niyad fiican yihiin marka groupkan kale aan sheegay xataa agoonka farxi boqolkiiba 90 waa dumarka waay marka dumarka aad ay u naxariis badan yihiin naxariistay macnaha ummadan masaakiinta ugu naxariisanaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala qaadir waxaan ka baryaa ilaahay asaasoo kale ilaahay ugu naxariisto waxyaabaha kale runtii oo lagu farxo haddana raggeena guddiga samafalayaasha Soona Quattro waxaa ka mid ah waxaa noo furan goob waxbarasho iskool oo noo furan oo sanadkii labaad noo shaqeynayo oo ilaa iyo 7 fasal ah ardayda joogtana waa 146 arday ayaa dhigato oo dugsi hoose iyo dugsi dhexe isku jiraan marka tirada ardayda waaba sheegay marka waxyaabaha runtii wanaag waxaa ka mid ah oo dadkan macnaha markasta wax istaqaysto ay sameynayaan waxaa waaye waalidiintii oo Soomaali ku dhibaataysan wax badan u baajaan matalan haddaan dugsi hoose ka soo qaato bishii halkii bil waxay baajiyaan $1,020 waa qolada dugsiga hoose ah runtii wax aad u fiican waaye kuwa dugsiga dhaxana $854 marka isku geentooda oo bishiiba waa $1,874 runtii wax sahlan ma oo bil kasta la baajinayo waaye sanadkii waxay noqonaysaa ardayda lacagta laga qaadi lahaa midna hadda dugsiga hoose oo kale tumila waa laga qaadaa dugsiga hoose ma afra laga qaadaa marka kan laakiin waa free lacag laga ma qaad macnaha lacagtan ka hadlay waxay tahay waalidiinta wixii laga baajiyaan ka hadlay waxaan ka hadlay lacagtan sheegayo lacagaha waalidiinta laga baajiyo way sanadkiiba waxaa la baajiyaa $22,488 waa $22,488 ayaa waalidiinta Soomaaliyeed la baajiyo waxaana baajiyo dadka muxsiniinta ah ee wax sadaqaysto bil kastaba hawshan iyo wanaaggan iyo khayrkan aan wadno ka qayb qaat oo qofna 100 dhiibayso oo bil kastaba ah qaar 50 dhiibayaan marka qof kasta wixii awoodo waaye marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa runtii horumarka iyo wanaag aan sameeyay tahay khayrkan Soomaaliga waa u dhantahay cid alla cid Soomaali oo meel walba ay joogaan hawshan waa ka wada qayb qaataan
waxaa la arkay wanaagan aan wadno iyo khayrkan markaan wadno aragno raashinkaan bixino iskoolaas noo furiyiinoo dadka si hoos markaan caawinayno Soomaali weyn meel walba ay joogaan waa nala soo xiriirayaan si islaamnimo ah ayaa macnaa caawinaadda soo baxshaa deegaan gaarna ma jiro marka waxay noqotay wax uun caam ay noqotay marka anigana waxa waaye si caam wax ummadda ku gaarsiinaa oo deegaan ma u fiirino marka taas runtii waa waxyaabaha horumarka aan gaarnay oo runtii lagu diirsan karo waaye marka midda kaliya aan xasuusana waxay tahay horta aniga dawladna kuma aan xirnin oo dawladda waxna ma siiso hay'adna waxna ma siiso ummadahan muslimiinta ayaa anaga waxna siiyaan oo wixii ay nasiyaan ayaan waxaan ku celinaa isla ummadii dadka macnaa oo danyartii oo agoontii iyo danyarta isugu jiraan ayaan ku celinaa wixii oo nolol soo dhibay marka cid qof kastaba ama gudaha joogaano ama dibadda joogaano waxa fiican in loo wada istaago oo laga wada qayb qaato oo marna aan lagu fikirin dad gaar ayaa wax siiyo aan lagu fikirin ama hay'ada wax siisan lagu fikirin ama cid kale wax siisan lagu fikirin aniga ilaahay subxaana qaadir ummadan muslimiinta ah meel walba ay joogaan ayaa barnaamijkan kala duwan oo qeyrka ah ka qayb qaato marka barnaamij kasta oo hadda la qabanayna la iskama qabto waa inay leedahay dad hormuud ah oo u istaagay oo dadka kala guwaabinayo marka runtii dadka hormuudka ah oo runtii aan ammaanayo oo runtii hawshan iga u istaagay oo wacyigelin badan sameeyo oo hadda aan maanta gurigiisa aan joogno oo waxaan aan ku qabanayno waa xaaji Muumin Cadde isna khayr Allah siiyo oo runtii dadku u istaagay oo juhdi badan u baxsho oo alla dartiis macnaha ku dadaalo oo dadka saaxiibadiis ah iyo dadka isla deegaanka ay ku nool yihiin gaarsiinayo marka waa si dar Allah ay hawshan wadaa ilaahay subxaana qaadirna waa la garab galay marka dhammaan dadweynaha kala duwan oo hawshan ka qayb qaatay ama Mareykanka joogaano ama Canada joogaano ama Ingiriiska joogaano ama Uganda joogaano ama Norway joogaano wadamo kala duwan oo hawshan ka qayb qaatay marka dhammaantood meel walba ay joogaan runtii khayr Allah siiyo muraadkeeda liina Allah u sahlo dadkan la afurinayna ajir badan ay keenayaan ajirkaasna Allah u aqbalo awlaadoodan Allah u xafido caafimaadna Allah ku siiyo meeshay joogaan Allah ku nabad yeelo marka in loo duceeyo waajib waaye marka dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka la afurnayo waxaan ka codsanayaa dadweynaha kala duwan ee rag iyo dumar isku jiro ee istiqadan ka qayb qaatay in loo duceeyo sababtoo qof kasta markii wax la baxayso muraadkeeda waxaan ka baqay ilaahay uu baryana muraadkeeda ilaahay macna u aqbalo marka intaasaan runtii warkayga ku soo gunaanadaya in hawshan aan wadno oo sida joogto ah oo midna iskoolkan oo kamid yahay oo kale in lagu garab siiyo oo waa kaasaan lagu gacan qabto oo waa kaasaan dhammaan qof kastaba si dar Allah macnaha wax loo qabto waa fahmi kartaan guri la kiriyay macallimiin joogto qalab waxbarasho loo baahan yahay marka cid Allah qof kasta wixii awoodo sadaqo ama hayraat ama habadnaat hal door Allah ka dhigo wax weyn noqonaysa halka door markii isku wax bay noqonaysaa marka yaa la yeesin qof kasta wixii awoodo ama wixii sameyn karto oo caruurtaas ardayda aan waxbareen u sameyn karto waxaan ka codsanayaa inay loo istaago oo qofna aan lagu halaynin tan kaloona isma falkane kaliya bishan barakaysan oo Ramadaan kaliya kuma xirnay dad badan waa jiro oo iska duruufaysan marka dadkaas waxa la mar kastaba in la garab istaagana taasna waa soo jeedin haduu ilaahay kara noqdo marka khayr badan nirjina insha Allah annagana dadaalkan wadno ilaahay subxaana qaadir Allah la garab galo intii aan runtii arintan u gudbinay naga ajiibtay wax ku darsatayna iyagana ugu mahadcelinaa sadaqada ee la baxshay macna la bixeen marka annagana waxa waaye waxaan u isagna wadar Allah waaye wanaaga wadna annaga ilaahay subxaana qaadir Allah la garab galo idinkana meesha joogtiin Allah nagu nabad yeelo hawshan hadda aan wadna Allah noo fududeeyo marka dhammaanteen aan isku wada duceyno meel walba aan joogno haduu la kara noqdo intaas ayaan afurintii aan wadnay aan ku soo gunaanada haduu la kara noqdo
marka aadani salaama meel walba aad joogtaan bismillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'd maanta oo ay tahay 15 bisha afraad 2021 kuna beegan ramadaan saddexdiisii alxamdulilah waxaan maanta halkaas saakaan u joognaa inaan bixinno barnaamijkii afurinta ee jaaliyadaha Soomaaliyeed gaar ahaan walaalaha Soonquatri Aqsuud wixii gudaha iyo dibadda wixii jooga ilaa 106 qoys ayaan rabnaa inaan siinana afurinno waxaan halkaa uga duceynaynaa insha Allah raggii la baxay sadaqadaas la baxay in ilaahay cudurka caafimaad ugu bedelo ilaahay meesha ay ka oomayn ilaahay ka waraabiyo ilaahay dambigooda iyo dambi waalidkooda ilaahay ku dhaafo ilaahay caruurta ilaahay baariyaal uga dhigo insha Allah ilaahay idinkiisa haddana waxaan bilaabaynaa qaybintii aan bilaabaynaa sida hortiina ka muuqata waa ujeediin waa ka raashinkii oo aan diyaarinay wixii aan idinka soo qaadnay iyo wixii aad noo soo dhiibteen walaalayaal waa ujeediin hortiina ka muuqdaan haddana waa bixinaynaa insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تذكر ولا لها ونسو قرب غفتي نسو قرقري الدنيا آخر مراده الله سلو الدنيا آخر مراده الله سلو عدوه الله قبطه قلبه وحب عليا أو خير الله سي إلهي وحان كبرينا تذكر ولا لها ولا له سو قرب غفتي سو قرقرتي سو حسوستي أو سو حريري إلهي وحان كبرينا مراده إن مجاهد الله ألا كسل مراده مجاهد الله ألا كسل عدوه الرد موجر الله ريح ورب موجر الله راع قدال موجر الله ريبه إلهي إذن كيسة ساسان كدعونا سمد الله كأقبل ورادود مجاهد الله الله كسل ساسان كدعونا سمد الله كأقبل هذا وود عصب قيدي عصب باللغو داري حمر مسكو حب بدي حبلي قيلكو استاغي الله كدغو إلهي إذن كيسة دغايها ددعي ريدود الله كدغو دغايها ددعي ريدود الله كدغو بقولك إيه تومنكي أفرت دحيود الله قليو وكان شرو قلنا ساسان كدعونا سمد الله كأقبل إلهي إذن كيسة بسم الله فاتح مراده تم الله كدغ الدنيا آخره. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan ka bilaabayaa in asxaabta soo dhiibtay intaan oo khayra falliga soonqaadka barakadiisa ilaahay ha cafiyo inti muslimiinana allah cafiyo inti muslimiin oo muslimiin allah cafiyo in gacanti koraysana allah ku daro sheekh moog iyo shaydaan ma taabto ilaahay idankiisa aan leenahay aniga warka waa jarjara oo maxada xaabado iiga jirtaa ee ilaahay gacanti koraysa allah ku daro cadaawadoor allah qabto intii muslimka soo milicsatay oo in maalkan macaanta badan noo soo dhiibtay ilaahay ha cafiyo آمين يا ربي الله عافيه الله عافيه الله عافيه الله عافيه ها هي الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله لهينا مسلمين وايد السلامة مال واللي بعد جوكتان سيدوين أو مانت أو أنا غيب خاضتين عن فرص كينا مانت آدت وقوم هاتسنتين dal iyo dibid meel walba aad joogtiin rag iyo haween hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabayaasha Soomaaliyeed oo qurbo joogta ah oo maanta waxaan ku dhahay taakuleenta anagu soo sameynaa aan furgelinta maanta ma sha Allah aad ugu faraxnaa marka waxaan rabnaa walaalahayna muslimiinta waxay ku farxaan Ilaahay siiyo wax waliba way naga caawiyaan
waxaan rabnaa dugsi qur'aan haddooyaa waa noo fureen haddoo iskuuliya waa noo fureen haddii tabaryaro jirto anfurka waa naga caawiyeen hadday agoon tahay maasha allah maanta ciil kuma jiraan caawa maasha allah walaalahayna muslimiinta meel kastoo joogaan wixii xanuunsan waxaan leeyahay ilaahay aa caafiyo wixii awlaad haysan waxaan leeyahay awlaad baar ilaah siiyo wixii awlaadda u joogaanoo dhibayaan waxaan leeyahay ilaahay ha u soo hanuuniyo waxaan leeyahay wixii oo maxuu ahaye markaaseeti oo waalidiintooda dhimatane waxaan leeyahay janno iyo fardoos ilaahay geeyo ayagana adduun iyo aakhira meeshay joogaan ilaahay aa u maceeyo waxaan rabaa dad isku wanaagsan waaye dadka walaalahoosaan usoo taagelinaayo waxaan rabaa walaalahayna muslimiinta inaan u mahad celiyo maanta meeshaan waan joogaa sahar isaaq maxamed ismaaciila magacayga la dhahaa iskuula noo fureen oo ugu mahad celiyaa maalin walbo maanta waxaan ka qayb joogaa anfuriska ee dadka sooman walaalahooda maanta soon noo maray anaga 3 dadna 2 u maraa maasha allah wallahi waxa ku qanacana na siiseen walaalahayna muslimiinta rag iyo dumar waa idin duceeyna ilaahay ani aqbalo وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى أوابلياشي مع الآذن يوكلي وحي أرمهان ما أنت نلسوق يبقى أنا قاعد جورجا أسكفدي مثلا مع الآذن يقصد دري مؤجن qofkii gurigiis iga soo wadiyo meesha ay keeno walaalay kaal waxaan qayb ka qaad asan idahay amba dadkii kor jooginta noo bariyo walaalihiinoo daruufeysana jiraana dhahay oo wax noo raadiye waxaan rabaa kulligooda waxaan leeyahay cafisa ilaah ugu dalbeynaa waxaan leenahay dembigooda ilaahay cafiyo jannatul firdawsna ilaahna wada geeyo dhamaanteena waan wada duceysayna ilaah noo wada aqbalo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa idin salaam alaykum rahmaan rahiim ugu horreyn waxaan salaama alayhi subxaanahu wa tacaala ee nagu kulansiiyey in aan muxuu ahay maanta aan ka qayb qaadano guddiga Soono Quater oo sameynaya dad muslimiina oo sooman u sameynaya afur haddii aan wax yar dib u laabto guddiga Soono Quater waa sanadkii 3aad oo ay bixinayaan sanadkii 4aad oo ay bixinayaan muxuu ahay maaragtay soonka raashin oo muxuu ahay samafal leh waa dad muxuu ahay maaragtay u istaagay guddiga Soono Quater inay muxuu ahay maaragtay kaalmeeyaan muslimiinta ku dhaqan deegaanka ee muxuu ahay dadka macagoonta iyo dadka liita waxqabadka aad u fara badan yahay waxay ku guuleysteen inay dugsi quraan u furaan waxay ku guuleysteen inay dugsi hoose dhexe iyo sare furaan ما شاء الله مركب محور مارتي إن ضدك وحي ماشاس وحكى عن إن ضدك وحقب سكران هدي صوت تجان أو أي هرمرك اللي يقول شيء يكون مجر أجنبي يكون مجر هرمرك وحكجرا ضدك جوديهيسه وحن مركب معناه بالشدة شيء جينا إن أي Soono Quater وحبضن أو قضية شاء أي سميسي أو محور ما أنت كمنان كن أي كحريين بيج كده محور مارتي إن وحوناجا أو هرمر لأي سمايين sanad kasta muxuu ahaa maaragtay afur kawaasa oo macnaha wixii awoodooda ay afuri karaan way afuriyaan muxuu markii la gaaro bisha muxuu ahaa ciida way ciideystaan oo dadkii intii allaale intii muxuu ahaa maaragtay la sii kara ciidana way siiyaan waxa soo haray muxuu ahaa fitradina way dhiibaan macnaha muslimiintana macnaha wixii adduunyada wax loo joogan wax kala ma in la iskaalmeeyo adduunyada loo jooga macnaha qof kasta oo ka qayb qaadan kartana way ka qayb qaadan kartaa malaha muxuu ahaa qabiil malaha malaha hadduu ilaahay ku roon yahay deegaan ahaan malaha deegaanku waa ka bilowday laakiin wax walba oo wanaaga jecel oo dhanaa ka soo qayb gali karaan marka qeyr Allah siiyo kulli waxba wax soo dhiibtay dada maxaa maaragtay waxyaabo badan oo u baahan maxaa maaragtay baahi soo sheegto in loo duceeyo mudan marka wax walba waxaan leenahay qof walba meeshay ka bogto ilaahay ha ka toosiyo qof walba waxay rajadeedu ay tahay ilaahay ha siiyo wabillahi tawfiiq marka maxaa maaragtay guddiga Soono Quater maxaa maaragtay waa guddi u dhisan si daacadnimo leh wax allaale wixii la soo dhiibana waxay ku sinaan dadkii loogu talagalay ku sinaan haddana macnaha waa u jeedaan hadda maxaa raashinkan dadaa soo dhiibtay dadaa sadaqo u soo dhiibtay dadkay u soo dhiibtayna dadka aan isleenahay way mudan yihiin waa dadka hadda anaga meeshan aan ku ballaminay waa dadkaan siinay qofna maxaa ahay maaragtay maxaa maaragtay qof kale oo asiga oo keena ama oo macnaha asiga jidka ka soo qabta midna ma jiro waa baahi deegaanka ka jirta iyo dadka aan isleenahay way mudan yihiin marka qeyr Allah in si wixii soo dhiibana qeyr Allah siiyo dadkii oo maxaa maaragtay ka qayb qaato hadda deeqdan loogu deeqane kuwa nabad ku cuna Allah ka dhigo billahi tawfiiq يا نور
الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان. يا نور الهلال أقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta oo ah maalin khamiisa bishii barakeysneed ee Ramadaan oo ah maalintii saddexaad waxaan horta marka ugu horeyso ummadda Soomaaliyeed ugu hambaleynaa bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaan kaloo hambaliyo iyo bogaadin u dirayaa inta ku abtirsato magaca zone 4 Yakshiid oo ah halbowlaha degmada Yakshiid. waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan inta ku abtirsato magaca zone 4 Yakshiid, gaar ahaan samafalayaasha dibadda noo joogo zone 4 iyo kuwa gudaha, iyagoo mar walba iska xil saaro in ay walaalahooda Soomaaliyeed ee degan degmadooda in ay mar walba u heelan yihiin in ay taakuleeyaan danyarta agoonta degan degmada Yakshiid, gaar ahaan zone 4. hambaladaas kadib waa markii afaraad, sanadkii afaraad ay sameynayaan walaalaheena zone 4 Yakshiid in ay walaalahooda degmada degan ee Yakshiid, gaar ahaan zone 4 in ay taakuleeyaan dhan walbo ha noqoto bisha barakeysan ee Ramadaan ee sanadkii afaraad ee afurinayaan walaalahooda Soomaaliyeed, gaar ahaan degmadooda degan. waxaan idin leenahay haddii aan nahay asxaabta ku abtirsata magaca zone 4 Yakshiid, waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalka iyo juhdiga aad ku bixinaysaan walaalihiina degan xaafadii jungal ee zone 4 ku abtirsato. dadka kale ee walaalaha ah iyaga laftigooda jecel zone 4 Yakshiid mar walba waxay u heelan yihiin in ay caawiyaan walaalahooda, kumana koobna oo keliya Ramadaanka oo keliya kuma koobna zone 4 Yakshiid. waan ognahay waxa ay qabtaan, dadaalka juhdiga ay bixiyaan, waxa ay qabtaanna waxaa ka mid ah iskuulkii waxbarashada dadka danyarta agoonta ay u fureen, dadkii markaas tabaalaysan ee xaafadaha in lagu soo booqdo wax loo qabto. marka aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin walaalaheena zone 4 Yakshiid ee soo taakuleeya walaalahooda degan degmada Yakshiid, gaar ahaan zone 4. marka dadaalka iyo juhdiga aad bixinaysaan waxaan ilaahay idinkaga baryaynaa in bedelkeedoo kheyr qaba caafimaad in ilaahay inuu idin geliyo oo idinkugu bedelo. anagana maadaama aan joogno magaaladii xaafadii kana tirsan bahdii zone 4 Yakshiid, wixii aadna soo fartaan awaamiirtiina mar walba waan ku shaqaynaa. macalin aadan xuseen, macalin bilaal, muuse cali iyo rag kale oo naga maqan, wixii aad soo fartaan awaamiirtaad soo fartaan si toos ayay u baxdaa, gacmo wadajir ayayna wax ku gooyaan. marka insha allah ilaah hadduu yiraahdo dadaalka halkaas ka sii wada, anagana insha allah ilaah hadduu yiraahdo wixii dadaala oo dhanka zone 4 jungal anaga idin joogno oo hormuud oo ka yahay macalin aadan
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waana salaamatiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.